qaarkood oo halgankaas soo galay uu iiga warami jiray dadkaas waxaa ku jiray walaashay Caasho Geele oo joogto caawa inta markaan Puntland imaanay waxay ahayd ministerka oo dumarka u fadhiyo wuxuu ahaa meetingkii ugu horeeyay oo uu ii qabtay markii aan Garowe imaanay dadka markaan la kulmo saddex su'aal aan weydiin jiray saddexda su'aal aan weydiin jiray waxay tahay 98 ilaa hadda 2011 kan aan joogno dastuur baa la dhisay waxaa lagu tala jiray sidii madaxweyne Deni ugu yiri oo kaleete in wadankan state kan uu noqdo meel qof kasta uu ka codeyn karo oo xur u yahay codkiisa meel cadaalad ay ka yeesho maxaa loo gaari waayay intaas taas su'aashu waa ahayd maxay tahay saameynta ay ku leeyihiin shacbiga ku nool Puntland sababta guushaas loo gaari laayahay iyo maxaan qaban karnaa anaga maanta si guushaas loo gaaro saddexdaas su'aal aan qof kasta weydiin jiray marka laba qof ay jiray oo jawaabta ay siiyeen isku hal ay ahayd labadaas qofna waxay ahaayeen Caasho iyo adeer Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweyne ka soo noqday Puntland oo asigana aan fursad u heli doono markii aan raadiyay wuxuu yiri Dubai uu joogaa waan ku kaxeynaya Dubai aan ku geenaya waa la fadhiisanaysaa waan iswareysanay asigana marka Caasho waxay ugu tiri Ilhaan annaga waxaan nahay dad wiligood aaminsanaa in la fadhiisto oo wax meel la mariyo kaas waa democracy haddaad meel fadhiisan kartid aad wada hadli kartiin go'aan aad isla wada gaari kartiin qof kasta codkiisa la maqli karo democracy waaye taas haddii aad aaminsan tahay annaga saan u aaminsanahay reer Puntland in qofka kalsooni uu isku qabi karo uu meel soo istaagi karo wixii uu rabo uu sheegan karo dadkan uu sheegi karo wuxuu u tari karo taas waa democracy laakiin waxay tiri sababta aan wili u gaari laanahay oo intaasoo sano looga soo shaqeynayo qof kasta madaxweyne kasto hamiyu ku lahaa in uu tixgeliyo qof kasto in fursad uu helo in codkiisa loo xisaabiyo qof asiga matali karo uu doorto in asiga aan looga turjubin qofkii matali lahaa waxay tiri waxa hor istaagsan intaas waxa waaye dadkii way daalaan way isku dayaan way ku rajay ku leeyihiin laakiin democracy waa messy waqti badan ay qaadataa qofku isku dayo ilaa uu dhamaystir gaarsiiyo priority ka dhisto ilaa ay hadda muusan imaan adeerna markaan u tagay jawaabtaas uu siiyay marka waxaan dareemay in annaga aanan ahayn dad nacayb u qabo doorasho dad iska rabo in qof kaleete ama qof qabiilkooda matalaayo ama qof familkooda matalaayo in uu asiga u sheego qofkii matali lahaa waxaan nahay dad aanan fursad isiinin in aan ku mintadno sidii aan ku soo dhicin lahayn true democracy in ay ka dhalato Puntland waxay leedahay faa'iido badan hadda aniga idinkaga sheekeyn karo aniga aad baan uga soo faa'iiday democracy-gaas oo ogolaanayso in qof kasta uu fursad u helo in codkiisa loo xisaabiyo markii koow aan tartamay 2016kii aan rabay baarlamaanka Minnesota inaan galo odayaashii adeeraday ahaa kulligood way fadhiisteen wiil in adeerkay ay la taltamayo asigana reer Puntland waxay dhaheen Ilhaan in adeerka u dhaaf Ilhaan in adeerka kursiga ugu dhagan odayaal buu ku biilanayaaye marka waxaan dhahay in adeerkay hadde amaan aniga oga haboonahay kursiga aniga ii daaya bal aan isku dayno in aniga hadii ii dhaafo in adeerkay ka fiicnaada laga yaabaaye bal hala baroobeeyo Minnesota taariikhdeeda laba mar ay ka dhacday in wiil iyo gabar oo Soomaali ah kursi
ay isku qabsadaan labadii marbo gabadhiyaa raysay taas waxay ku tusinaysaa haddii aan u dhaafi lahayn adeeradeen in ay go'aankaas gaaraan maanta aniga iyo hodan xasan kursi kuma fadhin lahayn anigu maanta taariikh maana suubin lahayn marka waa inaan fikirnaa haddaan annaga Soomaali nahay haddaan reer Puntland nahay waa inaan fikirnaa meesha aan rabno inaan gaarno maxaa naga hor istaagsan waxa naga hor istaagsan waxa waaye fikrad xun waxa naga hor istaagsan waxa waaye cabsi waxa naga hor istaagsan waxa waaye in anaga aan isjeclaysiinayno xooga aan dadka aan ku maxaa la dhahaa isha hogaaminayno laakiin haddii aan cabsidaas iska baabi'ino oo aan dhahno bal aniga maanta haddaan kartidayda iyo aqoontayda iyo programka aan wato agendada aan wato dad maanta aan ula soo hor istaago gabar iyo wiilba ha ahaatee waxaan aniga kalsooni ku qabaa in aniga la i dooranayo aniga aan meeshaan ka soo bixi karo taasna waxay ku imaanaysaa in aan bildgarayno progresska oo ay suubisay Puntland markii aniga hadda 11 sano ka hor aan Puntland joogay oo aan dadka badan wareysanayay waxaan qoray aan u maleynaa adiga 46 page report aan ka qoray programkaas ayaan taas isma aanan dhehaynin 11 sano ka bacdi waxaad arkaysaa 3 magaalood Puntland ay ka dhacaysaa dadkii iyagoo codeynaya waxaan dareensanaa jawaabihii dadka ay siinayeen in ay qaadan doonto 30 sano 40 sano marka waa wax lagu faano in madaxweyne inay uu go'aan ku gaaray wax kasta ha igu qaadatee waan ku dadaalayaa in aan tan fuliyo markii aad go'aan gaartid aniga saasay ahayd qof 44 sano kursi ku fadhiyo aan go'aan ku gaaray in kursigaas aan ugula tartamo wiil kala meesha soo galay oo Soomaali ah wili waan ku adkaystay go'aankaas oo waxaan aaminsanahay in aniga aan ka soo bixi karo shaqada oo aan rayn karo kursigaas marka haddii anaga aan aamino qof shakhsi ahaan in wixii aan damacsannahay aan ku inda adeegno oo ku bareerno ilaa intii uu ka dhamaanayo aan ku guulaysanayno inaan ka daba harin guul weyn aan gaaraynaa hadduu Ilaahay yiraahdo haddii aan iska dhaafnana shakiga iyo xumaanta iyo xumaan raadista taasna hadda Ilaaha og meel Soomaali ay gaarayso qof walaalka hadduu dhaho programkaan aan wada wax fiican aan noogu jiro haddaan kulligeen garab istaagno meel kasta guul aan ku gaaraynay ila tahay waa saxbin kartiin taas because waa guul weyn in maanta inta ay doorasho ka dhaceen oo aan u maleynayo hadda sanadkan soo socdo meel kasta oo Puntland laga codeyn doono waa guul weyn 11 sano ka hor meeshaan aan imaaday dadkii fikradii ay qabeen iyo fikradda maanta ay qabaan in ay kala duwan tahay waa guul weyn in aniga 11 sano ka bacdi aan soo laabto in anigoo ah Congresswoman Ilhan Umar waa guul weyn maanta 6 sano ka hor markii la ii doortay sharci dejiyaha ugu horeeyay oo Soomaali ah Mareykanka in maanta 14 sharci dejiye ah aan haysano marka haddaan is aamino haddaan isku tashano haddaan istaakulayno haddaan wanaageena raadino oo xumaanteena aan ilowno Soomaali waxay noqonayaan dad meel kasto laga xuso annaga
أنا وحنا آمن سنة أنا ندك كدوان نحي وحنا آمن سنة إن آد أن دتك وجدوان نحي وحنا دتك وجدوان نحي وحنا هاي أنجا دت آد وآمن سن إن وحكستو أي قبن كران وحكستو قف وقبن كرو وحين الله تحي إن قبسن كرنو لكن وحكيليا عن جوشة عن جاري لهين عن نكو جارين وأنا جي أسكت بنو مركوا مهم إن جد كيس كذا دقاقنو عن فيرنا بل إن إلا يحرك ماشي عن جاري لهين إنساس عن الآن سنة هاي إن ما أنت وحان قلنا rigorous debate إن هذا العيسى يدعاشو إن ولا شيء مدحونا دني وحان debate قرينيني إن دمر empowerment مركا دب ناش فديي وحيد هان وحي دمركا وما بعنا ودرينسيين دمركا صومالي ذا إن وحكست قبسن كرام يجا لغو تشتا يجا جوري مامولو يجا ماليين له يجا الدنيا بدبادية دجال كمركو دعي إن جبر هذا يكون مقنته قربة يكون جرتو إن هبين قاعدكم السياحين يسيد بدن كهذا كنا شحي جبر صومالي ما شاء الله الحمد لله لكن أنت كلية أين قبلها أنا أجمع موقنين ماليه للربي إنه كم موقدان وأنا جيت كأوجد أقاقين وأنا الفيرين بالماشي جاري كرت هدي قبل فرصة للسيو وح أوباهن تهاي أو إن الإمباور جراي يبرنامج لوسو بي وح لوسو بي أيو بدنا أوباهن تمجرتو بس حده أنا ماشي جارتو مركواتاس فكر كأني إنه ساس نقضه ما أها إن أنا عن سكوب مشغولنا أو عن أنا إسفير صنّا أو أنا عن نقنّا دتكي سورستاجي لها أو حمانتو ذرادين لها أو مالكستو كمجلسيو وأنا إن نقنّا دتكي جد كيس كذا دقائق لها أو به الهاي بالفيري مدحوين الدني وحي أسوبي جدك بنتلان كبس باي بالفيري مالها اللي علينا بالفيري مدحتويري بنتلان سيو أكتها قروحي كموقته بالفيري شرطي ضدك يكون النوليهين بالفيري نبدأ كجرته بالفيري أنت عسينا كشقي نوع مركا قفك إلا وانقلد حد قد بس شقدي لو أد أديبتهي هدوسن كو حد قد بين أديك وحد أباهن تحي إن أد جدك أوقات أخاخدت أد فيرست إلا إيماش أجاري كرو ولكن بزنس دولي هاي الحمد لله برهوري أسعو لعكتي سي وحي سي ماشو جيس أديك شقد هذا معها هوريها آدو فوربس 400 إنه ونخضع لجيابا سي دي قبل هذا جامعة كود لقطو أو أي سعتو وقت جاي تجيسي وقت جاي سعتي إيو إسكداف حالك يا بربرين نخطو راكد ساينتست أو أي لستو ضدكي إن آدي لهاي مونكا إن أن فكرة إني أن بدلنو أو أن نقولنا ضد أن بنسن سيدانو أغنى هاي ضد كرتلي إن أن هاي ضد إن محل هاي شيء أمين سن سومالي نمذودي إيو دقن كودي إيو دين تودي إيو ضد إن أن هاي أنا الكرسوني وين إسكو قبو وتحسين أن أغنى لكن قف كستحد تحسن كو أمورنا وأن دحنا بل أنا الكرسوني لأن إسكو قبو أنكو خبا ولاكي وحنا دوغو أنكو غاري بل وأنكو تاجير يا يو كسعنايا وحن إن كسو جبجبينا يا إن أي محل هاي شيء بوقشدان سيدان هداك يدين كوكو شيء يو كلاته أي تحي بوقشد آد يجو مهمسن إن لحسنا عن هذا وطن كمخنا وحياله بدن إسكبدلي إن قوة عن لا هاي وحي وطن كي عن أقبان كرو إن وحن كوكو عن صدي إن هذا كو أن تصيو دكي ده هاي ماشى كسول لعبة كل لعبة إن دكي جاينا إهين دك أي هين دك غيريسان وسشرف يسود وينايو مثل بعضنا هذا وطن كي أنا نيجي عنده كو أركمش ومراعي سدي حالة دي أي تحي
waxyaalo badan aan ka shaqeynay saad u ogtihiin ama ha ahaato Soomaaliya deenteedii in loo cafiyo oo dad relief loo suubiyo ama ha ahaato ilaa iyo 1.2 billion dollars in aan usoo dhicino si resiliency loo suubiyo ama maxaa la dhahaa ii sheeg abaarta iyo baahida wadanka ka jirto looga dadaalo ama ha ahaato jidkan ilaa iyo qarda ilaa iyo beelo gaarayo oo aan ayaamahan ku shaqo jirnay sidii loo taakulayn lahaa waxaan go'aan ku gaaray in wadankii aan ku soo laabtay indhahayga aniga aan ku arko meeshii wax idin marayaan meeshii baahida jirto iyo sidii aan ku wada shaqayn lahayn hadde aniga Mareykan aan ahay baarlamaanka Mareykanka aan ku jiraa laakiin gabar af Soomaali ku hadashaan ahay gabar jinsi Soomaali lahaan ahay saan u fahmaayo u dareemayo baahidiina way ka duwan tahay dadka kaleeta waxaan kaleeto aaminsanahay hadde Soomaaliya dadka marka ay fiiriyaan ama qaaradda Afrika oo dhan dadka markay fiiriyaan fikradda ay ka qabaan inay tahay waxa xun oo TV-ga ay ka arkaan ama baahida iyo gaajada la sheegayo oo aynan arkin fursad aynan u helin opportunity-ga iyo quruxda iyo maxaa la dhahaa ii sheeg dadka inay yihiin dad aad resilient u ah oo haddii fursad la siiyo waxyaalo badan soo dhacsan karo marka waxaan rabaa inaan laabto hadduu ilaahay yiraahdo week ka bacdi Mareykanka mar saddexaad Congress termkayga aan bilaabo oo la ii dhaariyo aan u shaqo galo intii ka dhiman aan qaban lahay wadanka Soomaaliya qaaradda Afrika aan u suubin lahaa waa mahadsantihiin ilaahay idin shafro saa ii sharaftaan